السلام عليكم. soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Adam mar waliba waxaan ka hadlaa English mar kasta waxaan ku soo celceliyaa English inta aan muuqaal soo gelinta kanaalkan dib u bilownay waxaan u maleynayaa ilaa 7-8 muuqaal oo English kaliya aan uga hadlayno in aan soo saaray ama aan soo geliyay maxay tahay marka arrinka igu qasbayso arrintaasi waxa igu qasbay waxay tahay waxaan jeclahay qof kasta oo Soomaali ah in uu Englishkiisa hormariyo in uu luqadiisa hormariyo in uu English ku hadlo taasi sababta keenaysa waxay tahay maanta hadii aad wadanka ka baxdid ama wadan kale aad tagtid waxa ugu horeeya ee isku fahmi kartaan dadka kale ay ajaanibta ah waa English oo kaliya sababta luqadooda ma baran kartid yani luqadooda ma taqaanid so English waa luqada kaliya ee kula xiriiri karto Englishka waa luqada kaliya u baahan tahay maanta hadii aad wadan kale business u aadid hadii aad wadan kale u guurtid hadii aad wadan kale waxbarasho u aadid hadii aad even shaqo dalbanaysid waxa ugu horeeya u baahan tahay waa English ma rabo inaan ku sii dheeraado ahmiyada iyo muhiimada muuqaalada Englishkan u sameeynayo waa midaasi waxaan rabaa qof kasta oo Soomaaliya in uu luqadiisa hormariyo Englishna ku hadlo aad ayaan u jeclaa arrintaasi muuqaalkan maxaan kugu hayaa marka maxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo 5 talaabo oo aad hadii aad qaadid aan ka dhabaysid aan 100% ku xaqiijinayo ama aan ku balan qaadayo 3 bilood ee soo socoto in aad luqada Englishka ku hadli doonto ama aad hormarin doonto luqadaada Englishka 100% way hormari doontaa 3 bilood ee soo socoto hadii aad 5 talaabo aad qaadid hadii aad go'aan gaartid way hadii ay ka go'an tahay way waxaan ugu magac daray study plan ama qorshaha barashada whatever nooc noqonaysa inta aan bilaabin mid aan ku xasuusiyo yani 5 shay aan ku siin rabo waxay kamid yihiin course dhan oo aan bixinayo oo aan lacag ku iibinayo ay kamid yihiin taasi marka waxay ka dhigan tahay in aan course dhan free ku siiyo marka ka faa'iideyso iskuna day in aad 5 shay ka dhabayso hadii aan ku bilaabo mid u horeyso waxay noqonaysaa part 1ka 5 minute writing session ama 5 daqiiqo oo qoraal ah 5 daqiiqo oo qoraal ah maxay tahay markii aad subaxdii soo kacdo waxa ugu horeeyay aad ku fakarayso waa luqadaada dhaladka sidaas darteeda ku bedel luqada Englishka tusaale hadii aad school aadayso hadii aad jaamacad aadayso ama hadii aad shaqo aadaysaba jadwalkaaga maalinlaha ah ku fakar kuna qor luqada Englishka taasi waxay ka saacidaysaa ama ka caawinaysaa in qaybta luqada maskaxdaada ay active noqoto laakiin hadii aad sameyn jirin ka waran marka hadii aad qorsheyn jirin maalintaada hadii aad qof iska socdo aheeday yani tani laba mid ka faa'iideysaa number 1 waxa noqon doonta qof qorsheeya maalinkiisa ama maalinkiisa wax ka qora ay noqonaysaa number 2 English ay faa'iideysaa sababtoo ah markaas waxdii soo kacdid waxaad English ku qoraysaa hawli aad qabar rabtid sidaad u sameynaysaa marka how to do it marka ugu horeysa waa in aad sariirtaada ama barkintaada dhinaceeda aad ku diyaarsataa qalin iyo book ayaad ku diyaarsanaysaa talaabada labaad qaadaysa markaas waxay tahay in 5 daqiiqo aad ku buuxisid timerka taleefankaaga ama saacadaada yani 5 daqiiqo aad ku buuxinaysaa marka 5 daqiiqo aad ku buuxisid 5 daqiiqo inta ay ka dhamaanayso waxaad qori doontaa waxa aad rabtid in aad qabatid maalintaasi okay kaliya 5 daqiiqo maxaa 5 daqiiqo ku sii in aadan caajis ku dareemin okay caajis kuma dareemin doonto waa just 5 minute oo kamid ah saacadaha subaxdii weeyaan okay subaxdii markaad soo kacdid waliba markii aad qortid marka maalinkaada waxa aad qaban rabtid 5 daqiiqo inay kula dhaafto lama rabo 5 daqiiqo markay dhamaato jooji waxaad qoraysid okay laakiin markii 5 daqiiqo aad bilowdid waa in adiguna bilowdaa wixii aad qori rabtay hadii marka aad yara xasuusanaysid inta aadan qormada bilaabin xasuuso waxaad rabtid maalinkaas inaad qabatid kadib markaad xasuusatid 5 daqiiqo ku buuxi taleefanka start kadibna qoraalka bilow ilaa ay ka dhamaato 5 daqiiqo ha ka walwalin macnaha inaad qortid waxyaalo qaldan don't worry muhiimadu waa in maskaxdaada ay active noqotaa oo ay la qabsataa qorida Englishka iyo marka aad wax qoraysid in maskaxdaada ay ka soo maaxanayaan ereyada aad qoraysid muhiimadu waa intaasi part 2 qaybta labaad sameynaysa waxay tahay qaybtan labaad waxaad qabanaysaa maalintaasi gudaheeda waxa raba waxaan inay noqdaan wax joogto ah qaybta dambana waan kuu sheegi doonaa part 2 arinta aad qabanaysa marka waxay noqonaysaa 10 minute input session computer marka isticmaalaysid wuxuu leeyahay input iyo output yani wax kasta waxay leeyihiin input iyo output adigu maskaxdaadan waxay leedahay input iyo output yani maskaxdaada waa in information galaa si ay output u sameeyso oo yani ficil u soo celisa so 10 daqiiqo oo waxa rabnaa in aad sameysid input ah ama maskaxdaada aad xog gelinaysid sideed u qabanaysaa marka sideed u sameynaysaa input session kan number 1 waxaad raadinaysaa muuqaal YouTube ah oo aad xiiseynaysid mowduuca uu ka hadlayo ayaad raadinaysaa yani waxaad raadinaysaa mowduuc aad jeceshahay in aad dhageysatid hadii documentary uu yahay hadii wax kale uu yahay mowduuc adiga aad jeceshahay in aad dhageysatid ayaad raadinaysaa English
ahaan ayaad ku raadinaysaa 10 daqiiqo ayaad dhegeysanaysaa inta muuqaalkaas aad dhegeysanaysid marka waxaad heli doontaa erayo yani firi inta uu qofkaasi hadlaayo waxa dhagaha ku soo dhici doono erayo aad taqaanid micnahooda iyo erayo aadan aqoonin micnahooda marka adigu waxaad focus gareyn doontaa oo aad diiwaan gelin doontaa oo aad qori doontaa erayadaasi aadan aqoonin erayada aadan aqoonin ee aad ka baratid muuqaalkaasi ayaad qori doontaa qalin iyo buug ayaad soo qaadanaysaa waad qoraysaa ilaa yani waxay noqon karaan 5 eray ama 10 eray ama 20 eray inta eray aadan adiga aqoonin waa diiwaan gelin doontaa ha ka walwalin marka in erayadaasi micnahooda aadan aqooninba xageed ka raadin doontaa waxay ku imaanaysaa part 3 marka maxaa sameynaysaa part 3 waxaa sameynaysaa waxaad qabsanaysaa 10 daqiiqo kaleeto oo ah research yani waxaad baaraysaa erayadii aad soo baratay erayadii aad soo qoratay ayaad baaritaan ku sameynaysaa waa 10 daqiiqo ayaad taleefankaada ku buuxsanaysaa qalinka iyo buug aad ku qortay ayaad soo qabsanaysaa waxaad raadinaysaa erayadii aad ka soo baratay muuqaalkii aad daawanaysay xageed ka raadinaysaa marka yani Google ayaa joogo Google ayaad ka raadinaysaa mid marka ha isticmaalin Google Translate yani erayga macnihiisa kaliya ku siinaya laakiin haddii Google-ka aad ku qortid caadiga ah eraygii aad baratay adigoo raacinayo meaning for example waxaad baratay definition oo kale waxaad leedahay definition meaning ama what is the meaning of definition sidaas ayaad u raadinaysaa kadib wuxuu ku siin doonaa macnihii erayga iyo qaabka loo isticmaalo xitaa jumlado ayuu ku siin doonaa fahmaysaa marka researchiga noocaas ayaad u sameynaysaa kadib marka aad researchiga samaysid oo halkaasi aad ka aragtid yani qeexitaano ama jumlado uu ku siiyo oo halkaasi aad ka soo baratid erayadii haddana waxaad samayn doontaa part 4 maxay tahay marka part 4 waxay tahay 5 daqiiqo 5 daqiiqo maxay tahay waa 5 daqiiqo oo aad ku qabanaysid waxaad ku abuuraysaa jumlado 3 jumlad ilaa 5 jumlad yani 3 eray ama 5 eray aad ka soo qaadanaysaa erayadii aad soo baratay aad ka soo qaadanaysaa 3 ilaa 5 eray oo kale markaad soo qaadatid waxaad ka abuuraysaa jumladaasu adiga kugu saabsan qalinkii buugaad soo qaadanaysaa waxaad dib u baaraysaa erayadii aad soo baratay markaad dib u baartid waxaad ka heli doontaa 1 ilaa maaragtay 3 ilaa 5 eray ayaad ka soo helaysaa ayaad ka soo xulanaysaa oo adiga ku saameynayo kadibna 3daasi eray ama 5taasi eray aad soo qaaday ayaad jumlad gelinaysaa jumladaasoo adiga kugu saabsan naftaada ayaad ku dabaqaysaa sidee naftaada ugu dabaqaysaa for example waxaad soo baratay fault yani foul or ama fault it's my fault yani doing this is my fault so jumladaasi ayaad naftaada ku dabaqaysaa tusaale faultigo kale markaad soo baratay waxaad leedahay missing the salatul fajr is my fault yani inaan miss gareeyo ama ay iga tagto salaadii subax yani it's my fault waa aniga khaladkayga it's my mistake yani waa aniga khaladkayga inay iga tagto salaadaasi yani sidaas oo kale ayaad sameynaysaa yani 5 eray waxaad ku sameynaysaa sidaas oo kale taasi maxay ka caawinaysaa marka taasi waxay ka caawinaysaa erayadii aad baratay maadaama naftaada aad ku dabaqday researchna aad ku samaysay yani maalinkaasi kadib inayna kaa lumin kaama dhumayaan eraya aad wadadaasi marsiisay part 5 aad u imaanaysaa marka part 5 maxay tahay part 5 waa easy waqti xitaa kaagama baahna part 5 waxay tahay consistency joogtayn kaliya inaad joogtayn samayso yani 4 shay aan kuu soo sheegay haddii aad joogtaysid waxaan ku balan qaadayaa 3 bilood ee soo socoto in aad English ku hadli doonto aniga ayaa ku balan qaadaya laakiin adigu ma tahay shakhsigii ku haboonaa ee arintan qaban lahaa adigu ma tahay shakhsigii u baahnaa in uu luqadiisa hormariyo soo muhiimadu waa intaasi adigu ma tahay shakhsigii saxda ahaa marka ay doonayay in uu luqadiisa hormariyo mana rabtaa in aad waqti ku bixisid firi waqtiga ma badno marka ugu horeysa waxaan ku yiri writing sessionkii 5 daqiiqo input sessionkii 10 daqiiqo halkaas maxay ku tahay 15 minutes maxaa ku xigay 10 minutes oo research iyo 5 minutes oo maaragtay jumladii ay qoraysay waa another 15 minutes isku dar waa 30 daqiiqo yani 30 daqiiqo maalintaada dhan maada weynin 5 daqiiqo horeysa waa subaxdii 10 daqiiqo barqinkii oo kala ka dhigi kartaa oo input sessionka researchiga galabtii oo kala sameyn kartaa researchiga markaa sameysid jumladahana waxaad sameyn kartaa oo aad naftaada ku dabaqaysidna habeenkii markii aad guriga imaatid ama wixii ka dambeeya cishaha so waa easy waa 30 daqiiqo oo aad u qaybinaysid maalintaada waa 5 10 10 5 yani waa 5 10 10 5 yani waa easy marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doonto 5tan shayna aad naftaada ku dabaqi doonto consistency is the key mar walba waxaan rajaynayaa haddii aadan kanaal kusoo biirin inaad kanaal kusoo biirto ugu yaraana aad hal qof la wadaagtood u sheer garayso muuqaalkana like-ta ka hilmaamin ramadaan mubaarak assalaamu calaykum